soo booqannay meelaha ama goobaha ay daadadka ku dhufteen ee ka tirsan deegaanka la iga soo doortay ee Wajeer South waxaan aad iyo aad ula murugooday dhibaatooyinka soo gaaray deegaanada ay ka midka yihiin Diif, Dhadajabula iyo Buurdheer oo runtii daadadku ay khasaare aad u baaxad leh ka geysteen. waxaan aragnay guryo mataqaana ay biyuhu galeen, deerarkii ka dumiyeen, dadku waxay noo sheegayeen xoolo ku leeday mataqaana daadadkii iyo fatahaadihii ka dhashay roobabka lixaad kale maalmahanba ka da'ayay deegaanka. waxaa kaloo inoo sheegayeen in ay kala go'doomeen deegaanadii intooda badan. wadooyinka iyaga ma wanaagsano, wax badan oo maalgashiya laguma samaynin deegaanka in muddo ahba. wadooyinkii xataa mataqaana ka baxayay Wajeer oo ah caasimadda countiga ilaa gaarayay Diif oo ah mataqaana goob xuduud ah oo la doonayo sida shuruucda Kenya ay dhigaysa ama sida qaynuunkuba yahayba in wadooyinka aadaya xuduudaha ay noqdaan kuwo mar walba la mari karaya hadduu roob da'a iyo hadduusan di'inba. laakiin wadada aada Diif dhammaan deegaanada iyo tuulooyinka ku teedsan maanta si kale oo loo gaari karaya ma laha in helicopter la qaato mooyaane. marka waxaan ugu baaqaynaa dowladdu in aynan dhayalsanin sidii dowladihii ka horreeyey in ay wax ka qabato wadooyinka deegaanka isku xiro. maxaa yeelay masiibada haddaan arkayno ma gaarsiisnayteen meesha ay hadda gaarsiisan tahay haddii ay wadooyinka noo dhisan yihiin. dadkeenna gurmad baan baabuurra ugu geen lahayn, laakiin baabuur ma jiro, meel la maraya ma laha, iyagii baa kala go'an, dadkii ma haystaan sahay, bakharadii cuntadii baa ka dhammaatay, dadkii mataqaanaa isbitaaladii kama helayaan daawooyin maadaama ay dhammaatay ay ka dhammaadeen si loogu geeyo waa adag tahay iyaduna. marka waxay noqotay in helicopter ay noqoto maaragtay wax gargaarka iyo gurmadka dadka lagu gaarsiinayo. taasna aad iyo aad bay u xadidaysaa waxa dadka la gaarsiin karaya mataqaanaa caawinaadda. waxaan ku faraxsanahay in mas'uuliyiinta deegaanka ka yimid dowladda dhexe ka tirsan in ay mataqaanaa noo hureen helikobtero xamuul ah oo bagaash iyo mataqaanaa dawooyinba u qaadi karaya dhulalka ay fatahaadaha aafeeyeen. taasna waxay bilaabanaysaa maanta haddii ilaahay idmo oo Arbaca ah, wayna socon doontaa in muddo ah. waxaa kaloon filaynaa gargaar dheeraad ah inuu naga soo gaaro hay-adaha aan dowliga ahayn oo ay hormuud u tahay Lanqeyrta Cas ee Kenya oo dhabtii shaqo aad u wanaagsan ka hayso deegaankan. hadday masiibo jirto iyo hadday masiibo jirin waan u mahadnaqaynaa. waxaana leenahay kuwa kale hay-adaha aan dowliga ahayn inay ku daydaan oo dadka maanta ku go'doonsan tuulooyinkaasi fogfog oo wadooyinku ay ka xirmeen si loo gaarana aynan jirin ay iyaguna isku dayaan intii karaankooda ah in ay gargaar degdeg ah gaarsiiyaan insha Allah. qaar ka mid ah wakiilada koonfurta ismaamulka Wajeer ayaa dhankooda ka warbixiyay xaaladda go'doonsan ee deegaanada qaar. in maaragtay walaalkeen MP-ga Wajeer South iyo PS-ta Umi ay si lixaad leh talkoodii ama meelihii ay gaareen dhibaatooyinka ay si hagar la'aan ah ugu soo gurmadeen. maanta waxaan gaarnay meelaha kale ah Diif, Dhadajabula iyo Buurdheer. runtii meelaha way kala daran yihiin. waxaa hadda ugu daran magaalada Dhadajabula. waxaad malayn kartaa in meelihii fatahaadka ay ka dhaceen ugu horreeyay isbuuca sida hadda Diif iyo Dhadajabula Buurdheer ay ahayd in ay ka sii yaraanayaan biyihii ay sii baxayaan. laakiin roobabkii xalay da'ay waxay si lixaad leh ugu dhufteen Dhadajabula. waxaan runtii maanta ula tagnay inta tukaamadooda laga heli karo in ay hor u sii qaataan ay ku sugaanna hadduu Ilaahay yiraahdo. annagoo si qaas ah ugu mahad celinayno Red Cross hay'adda Lanqeyrta Cas ee Kenya in ay soo gaarsiin doonto hadduu Ilaahay yiraahdo galabta hadda waqtigan aan kula hadlaaye loo raraayo Diif ilaa 350 qoys raashinkii isbuuc ilaa 2 maaragtay lagu celcelin lahaa iyo gaarsiin doona 150 ilaa Buurdheer. runtii waxaan ka dareemayay ama baahida ugu badan ee taalla maanta waxay tahay kanaacadii oo kacday isbitaaladii oo daawada ay ku yar yihiin ciyaalkii dhallaanka ahaa
oo macnaha xanuun uu la soo darsay iyo inta badan daadadka meelaha ay saameeyeen waxa kamid ah musqulladii magaalada u wada dhisnaa dhammaantood in dhulka lagu daray marka codsiga ugu horeeya aan ka rajaynayna county-ga inay noo ballan qaadeen daawooyinka meelaha uu ka dilaacay fatahaadka inuu gaaro daawo degdeg ah inuu gaarsiiyaan iyo maxay ahayday ka hortag daacuunka iyo shuban biyoodka dhammaantood ka hortagii loo sameyn lahaa national government-ka yaa maanta halkan saaki barqada ka baxno booqonay meelaha saameynta ku lahayd roobka diif buurdheer iyo Dajibula waxa aad ay saameyntan aad ugu lahayd roobkii u dambeeyay xalay iyo habeen hore uu ka dhacay magaalada diif magaalada Dajibula marka waxaad u malaysaa magaalooyinka buurdheer iyo diif hadda inay xoogaho biyihii ay meelihii waxaan booqonay goobihii dadkii ka soo barakacay aqaladooda ay biyaha daadadka qaadeen oo joogay gobolada iskuuladii iyo istaalada meelihii marka maanta soconayna waxaan helnay hay'adda Lanqeyrta Cas oo Wajeer yaa waxay nagu deeqday raashin 500 qoys ah 350 waxaan geynay waxa la geenayaa galabta diif 150 waxa la geenayaa buurdheer waxa bari dambana maartay loo arrange gareyn doonaa magaalada diif magaalada Dajibula insha Allah xildhibaanka laga soo doortay Wajeer South aad baan ugu mahadnaqayaa inuu maartay shaqooyinkiisa cuslaayo kala ka soo baxa asagoo maartay arin adag Wajeer u jooga Nairobi inuu imaado u la qaybsado dhibkii gaaray dadkii soo doortay reer Wajeer South oo kamid ah yihiin diif buurdheer iyo Dajibula marka waxaan u baaqaynaa halkan aan ugu baaqayaa hay'adaha samafalka ah inay degdeg ku soo gaaraan wadooyinkii way go'een sahayd yar oo dadka haysteen waa ka go'een si kastaba ha noqotee mudane maxamed cadow ayaa noqonaya mas'uulkii ugu horreeyay ee ismaamulka Wajeer bulshada garab istaago xilli xaalad adag oo fatahaad lagu jiro kumanaan shacab ahna ay ka barakaceen guryihii ay degnaayeen